halkan waa ceelkii la oran jiray Dowlis runtii bulsho badan iyo dadka deegaanka marka ay ka qayb galeen oo arinta dhibaatada meesha ka jira xoolaha dhibka haysta dadka waraabinaya waxa go'aan lagu qaatay meesha wax kasta ha ku qaadatee in laga miro dhaliyo runtiina Ilaahay waa ku gargaaray arintaas ma sha Allah maantana waa ka ahaantii biyaha ka dhacayso haanta runtii xataa hay'adaha waa arkay waxa ay sameeyaan nooc la mid ah ima soo marin dad baana gacantooda ku sameystay deegaanka oo dhashay waana wax Ilaahay u hirgeliyay ma sha Allah waana aragtaan ficilka meesha yaala sida loogu tabcay sida loogu hagar baxay runtii dadka waxaan dhamaantood ogeysiinaya dadku inay gacantooda wax ku qabsadaan halkan waa systemkii bamka ceelka kaasi waxa weeye waa switchki DC-ga kana waa mid AC kana waa systemkii panelkii motorka qaabka loo daarayo marka rabti solarka inaad saartid waxaad geysanaysaa saasuu ku daaran yahay bamku hadda waa inoo shaqeynayaa systemkan waa systemka uu sii marayo marka u dambayso wuxuu soo saarayaa kan waa gulubkaas wuxuu la shaqeeyaa solarka ka labaad bamkii inuu kacay ku sheegayaa halkan waa 350 voltage-ka weeyi kaasina wuxuu ku sheegayaa gulubkaasi MPPT inuu wixii hadda ka dhiman ama marka qorraxdu badan tahay uu ku darayo marka yartayna uu ku darayaa marka ay badatana waa ka dhimaya ma sha Allah waa lagu guuleystay halkaas waa systemka solar iyo motor ku shaqeeya motorka marka rabtidna wuxuu leeyahay janjoobarka xaga kale u wareegaysa motorka hadda ma shidna laakiin waxa la isticmaalayaa hadda waa solar qaybtan waxa la yiraahdaa effector waa DC iyo AC u bedelaa qaybtaasina waa DC direct bateriyada toos ugu xiran tahay si effectorku habeenkii uu u shidnaa waxaan ku xirnay guluuba DC qaybtani waa DC-gii solarka ka imanayay oo solar kale oo gooniya weeyo aan kan ceelka ahayn qaybtana waa qaybta baroosooyinka halkan marka waxa ku cadaanaysa waxa ku xiran laba xabo oo baroosooyin ah oo loogu talagalay jaajarada dadka meesha imanaya dadka meesha ka shaqeeya inay isticmaalaan halkan waa qaybtii solarka systemku uu yaalay runtii aad baa loo xafiday laba qaybood buu u xiran yahay qayb waxay isticmaashaa bamka qaybna waxa isticmaala systemka layrka iyo bareysooyinka si fiican baa loo xafiday ma sha Allah waa darkii geela weeyi geela ka cabaya inkastoo hadda xooluhu ay ka fog yihiin oo ayaantan ay xagga naqar raaceen runtii anaaba ka yaabay waagi hore xoolaha meesha ugu yimid oo dalowga looga jiray waa darkii geela haddaan ku furaynaa ما شاء الله وحلاهي مهديه وي وكوا بيو كدعيا ودركي جيل وي بيو وكوا كدعيا ما شاء الله وحلاهي لوغو مهديه وي